what I am preferred person who fears by everyone. No one can talk to me and stand in front of me. I am lion of the class and every student knows that. Don't pretend you are lion, otherwise you will see what you have never seen. College person and take what you can do for reference. So don't tell yourself track person and put your face on the ground. An English proverb says, establish feet meet when it's shameful. Okay, I was searching for you as a need see, but today you are made, so don't try to escape from me. Otherwise, collect your little bonus into plastic by. xafladeennii aynu qaban jirnay ama bandhig aqooneedkii aynu qaban jirnay sanadlaha ama 6 biloodka ahaa taas oo markaa kulliyadaha kala duwan ee college-ku ay soo bandhigaan sida maanta waxay nooga horeeyaa qaybta Englishta ama departmentiga Englishta oo inoo soo bandhigi doona hadda bal wixii ay muddada baranayeen insha Allah maanta waxay nooga horeynayo bishu tahay June 26keedii sanadka 2022 oo bandhigeena kan uu daaran yahay marka ay soo jeediyaan kolley ardayda cid waxa soo jeedinaysa waa in yar oo kooban intaasi waa in ka turjumaysa fasaladii ay kala ahaayeen ee ma aha macnaheedu ardayda dhan waxbay soo jeedinayaan waxay noogu xigi doonaa kulliyadda IT-ga oo iyadana dhawaanka soo jeedinaya oo 4 bisha meelahaas ku beegan oo yana inoo soo jeedin doona qaybna in kala joogto maanta waxa kaloo in kala jooga waxa kaloo bilaami doonta qaybta caafimaadka 8 bisha ilaa 9 bisha ah oo yana bandhigoodu inoo daaran yahay marka maanta ujeedkeenu waa bandhig iyo soo dhaweyn arday yacni cusub oo kulliyadaha kala duwan ee college-ka ah saddexda qayboodba aan soo dhaweynayno ardayda cusub ee bisha tan June gudaheeda isqortay college-ka ama ku soo biirtay oo qaarkood maanta joogaan oo kuwaas oo kala ah qaybta caafimaadka qaybta Englishta iyo qaybta computer science-ka waxaan kaloo iyadana idinku bishaareynaya college-ku inuu bisha tan oo qayb college-ku soo kordhiyay ardayda maxaa loo yaqaanayay saxaafadda maxaa loo yaqaanay ardayda baranaysa saxaafadda baranaysa oo horeba uga qalin jabiyeen wariyaal uga qalin jabiyeen oo imika wariyaashaas ay shaqeeyaan gobolkan ay ka shaqeeyaan gobollo kalena ay ka shaqeeyaan waxaan kaloo iyadana insha Allah oo noo soo kordhayadana kulliyadaha kala duwan ee caafimaadka oo cusub sida kulliyadda umulisada ama hooyada habka looga umuliyo kulliyadda nafaqeynta ama quudinta kulliyadda maxaa loo yaqaanayay kalkaalisada ama nursingka kulliyadda shaybaarka qaybta Englishta waxaan qaadan doonaa iyadana sanadkan arday ah inta loo yaqaano intensive course oo ama oo degdega koorsooyin degdeg ah oo 6 bilood ah oo grammar ah oo khalaya oo la qaadan doono bisha tan gudaheeda oo xilliga aroortii bixi doona short course-yadii bixi jiray oo iyadana hadda bixi doona insha Allah waxa kale ku xigi doona oo iyadana aynu baahineena wax loo yaqaano waxa kaloo ardaydaas qoraysa loo sameyn doonaa qayb kamid ah wax noqon doona scholarship ay noqon doona qayb scholarship ah oo insha Allah college-ku baahiyay taasna waxaan ku soo dhaweynayaa ardayda cusub arday kaalmaha gashay oo English qaybta English ahayd macnaheedu ardayda oo dhan oo level 1 weeyaan level 2 iyo level 3 iyo level 4 midna ma aha laakiin level 1 koodii bay imtixaanka soo galeen uu dhigi jiray macallin Joker marka maxaa loo yaqaanay halka ayaan loo guddoonsiin doonaa knowledge is a lack of light. Lack of knowledge is a lack of light. It is homeless and without lighting. It is homeless and without lighting. It is no school is go and go, brothers and sisters. When you are a student, you must be different from other people outside of the character, respecting and experience. You must respect your teachers and your classmates. Traditional forms and political styles. People were different from one another. In Egypt, people had different traditional systems. These are various types of administration, such as waxaan ka hadlayaa qiimaha waxbarashadu u leedahay guud ahaan bulshada gaar ahaan dhalinyarada waxbarashadu waa furaha nolosha waxa jira ereyo suugaaneed oo lagu cabiro qiimaha waxbarashada waxaana ka mid ah
heesta uu qaado fanaankii weynaa allah u naxariistay maxamed mooga liibaan aqoon la-aan waa iftiin la-aan waa aqal iyo ilays la-aan aqoontu waa shayga kaliya ay dadku ku horumaraan tenniska aan ka hadlayo ama aan sharaxaya waxaa la dhahaa present continuous tennis present continuous tennis waxa weeye dhacdo fal oo hadda dhacaysa qeexiteeda su-aal baa halka ku taal waxaa tahay what is the present continuous tennis waa maxay dhacdo fal hadda dhacaysa is used waxaa loo isticmaalaa for what happening oo waxay hadda dhacayaan qurux buu ku nool yahay ninkii qalin dhowaystaye qatimaada buugagtu waa qaran hal doorkiye qiyaasiyo halbeeg buu dhigtaa oo qadeeriyaye alharamayn waa iskool daweyn oo rabbigay galladay alharamayn waa damal hadhweyn oo la wada hadhsado oo waa iskool horimariyo haybad lagu yaqiin in 53 countries and as a secondary language in over 118 countries. The learning language makes it much easier to travel anywhere. Indeed, airport announcement, emergency information, and history sickness are often available in English. Language enhances your cognitive and analytical abilities. Learning a new language can be difficult and it involves a lot of mental exercises. Million people in the world will be studying English. Therefore, it's highly likely that if you meet someone from another country, companies expecting employees to be fluent in English. If you speak English, you want to need to rely on translations and subtitles to enjoy your favorite books, songs, films, and TV shows. halkan anigu waxaan rabaa inaan qodob yar uun kaga hadlo oo waxaan kaga hadlayaa horta caafimaadka muhiimadiisa qof walba waa ogayo waa ku halka ku fadhiyo saaxiibadii kula sheekaysanayo gurigiisa kaga yimi laakiin se waxaan rabaa inaan hal mid uun halkan ka sheego waxaan rabaa inaan halka ka sheego waxa jira hormoon loo yaqaan corticosteroid hormone hormoonkaasi waxa daawooyin baa loogu isticmaalaa daawada ugu khatarsan ee hormoonka kicisa waxa loo yaqaan dexamethasone daawadaasi daawada dad badan khalad bay u fahmeen dhakhaatiir badan baa daawada adeegsada wayna ognahay dhakhaatiirtu waxay u adeegsadaan si xanuun qof uu si xanuun baa loogu qoraa dadka laakiin se dadkeena waxay u aamineen si khaldan waxayna u isticmaalaan sifo khaldan markii hore daawa lagu dari jiray loo yaqaan glow power laakiin se hadda glow powerti waa laga tagay waxaana loogu daraa daawo loo yaqaan vitamin 9 vitamin 9 kaas waxa marka lagu daro Soomaalideenu af Soomaali waxa lagu yaqaanaa big power iyo kobciso iyo waxaan la aqoon laakiin se qof walba waa og yahay gabadh walba oo daawada cuntay iyo inaan walba cunay daawadaas khatar badan bay keentaa kana socda ardayda dhigata Al-Haramain International College Faculty of Health Science Department of Nursing waxaan halkan bogaadin iyo hambalyo uga dirayaa ardayda language-ka tigo ah muhiimadda hadeerta ugu weyn ee hadda dunidu wareegayso ICT waxa weeye information communication technology oo hadeerta ay dunidu wareegayso qolyahan technology-ga walaalkiina halka ka sii wada aad baan idinku hambalyeynaya xaflad fiican baa qabsateen aad baan idinku dhiirigelinaynaa insha Allah college kan dad baa moodaya inuu yahay college yacnaha dhawaan la aasaasay wuxuu ahaa college facweyn oo waqtiga xitaa anigu aan ilmaha yar ahaa oo qalinka lay qabtay oo ABC lay bilaabay ee arday ka aflixeen waxaana yacnaha sharaf u ah inuu maanta misna uu soo kordhiyay maadooyin kala duwan waqtiga Ingiriisi kaliya buu ahaa laakiin maanta waxaan indhahayga ku arkaa iyadoo caafimaadkii IT-gii maadooyinkii xisaabtii iyo Soomaaligii oo basic education-kii iyo Ingiriisidii oo hab modern wax loogu dhiganayo inay dhiganayaan ardaydii ma sha Allah tabarakallah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay hambaliyo ardayda yar yar leeyahay macallin waxa la cunayaa midhihii aad soo saartay ka maanta ka shaqeeya shirkadu shaqeeya ka u shaqeeya xafiis u shaqeeya macallin adaa soo saaray calina intaas aan leeyahay waa ku bogaadinayaa inaynu farxadda aanu la wadaagno ardayda soo bandhigtay wixii ay intii muddooyinkii bilihii sanadihii ay baranayeen runtii waxaan rabaa inaan laba kelmadood ka dhaho kelmadna ku dhiirigeliyo ardayda oo motivate uga dhigo kelmadna aan uga mahad celiyo macallimiinta runtii si kalsooni leh waxa la soo bandhigayaa ma aha laakiin waa sida loo sheegayo muhiimku ama xigmaddu saasay ku jirtaa sida kalsoonida leh ay u soo bandhigeen aqoontii ay intaa baranayeen ardaydii ku soo dadaashay inay halkan yimaadaan soona bandhigaan waxa intii barteen runtii waxa farxad ah in maanta
college-ka alxalameyn uu qabtay platform runtii ardaygu marka uu bartona wuxuu u baahan yahay gole ama madal uu ku soo bandhigo wixii uu baranayay waxaan ka mid ahaa ardaydii alxarameyn 2004-2005 luuqadda iyo xisaabta ka dhigan jirtay aad baan halka waxaan uga mahad celinayaa labadaydii macallin qoje iyo macallin tactiir marka muhiimadda ay waxbarashadu leedahayna waa wax aad u weyn maanta inteenaasi isuma nimaadneen haddii aynan maanta aqoon lahayn ardayda qiimaha badan waalidiinta maamulka iskuulka macallimiinta marti sharafta iyo ardayda dhaqanka aad baan ugu mahad celinayaa kasoo qaybgalka ay u sameeyeen ardayda ingiliishku guud ahaan martida anigoo aanan ku dheeraanayn waqtiguna gabagaba yahay ilaahay mahadii waxaan ku faraxsannahay ardayda ingiliishku inay soo bandhigeen wax aad u qurux badan bandhiga aad u qurux badan marka aad baan ardayda ingiliishka uga mahad celinayaa waxaan rabaa marka waxa weeye arday baan rabaa inaan maamuus anigu gaar ah aan siiyo 3 bilood oo ugu dambeysay oo anigu imtixaanka qaadayay waxaa jirta arday kaalmaha gashay oo anigu aan u ballan qaaday marka sidaa darteed waa maxay waxaan siin doonaa ardaydaas oo aan ku xusi doonaa halkan idinkoo markhaati ka wada ah ardaydana waxaan ku dhiirigelinayaa in dadaalka la sii ballaariyo